Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa ABC News Now. Daawadayaal ku soo dhowaada warka caalamka maanta waxaa idiin soo gudbin doona anigoo ah Mustafa Cabdullaahi. Taariikhdu waa 8 bisha Oktoobar. Waa maalin Arbaca 2025. Haddaba wararka caalamka maanta waxaanu ku soo qaadanaynaa qodobka ku saabsan xaaladda Gaza iyo wadahadaladii u dhexeeyay Israa'iil iyo ururka Xamaas ee ka socda magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Wararkii ugu dambeeyay ku saabsan wadahadaladaasi ayaanu warbixin idinka haynaa. Sidoo kale waxaan warbixin idinka haynaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka codsaday madaxweynaha dalka Turkiga mudane Erdogan inuu ka caawiyo wadahadalada Xamaas iyo Israa'iil si lagu soo afjari lahaa dagaalkaas. Waxa kaloo aanu warbixinta idinku haynaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil qorshihiisa ku aadan wadahadalkan hadda socda ee Xamaas iyo Israa'iil u dhexeeya iyo soo afjaritaanka dagaalka Gaza. tahay dawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. tahay dawadayaal waad mahadsan. Xaaladda magaalada Gaza ayaa iyadu ah mid joogto ah oo aan maalinna bun loogu saamixin oo aan laga joojin duqaynta iyo dagaalka iyo weerarka lagu hayo dadka shacabka ee magaalada Gaza. Maanta oo ugu dambeysay warbixintii ilaa saaka la soo gudbiyey waxa ay sheegayaan inay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 8 qof dagaalkii ugu dambeeyey weerarkii ugu dambeeyey ee ku qaado Israa'iil shacabka reer Falastiin ee magaalada Gaza. Waxaa kaloo la sheegay inay ku dhaawacmeen ugu yaraan 61 qof sida ay wararka ay soo tebinayaan Al Jazeera. Waxaa kaloo xaaladda halkaasi ka taagan ayaa iyadana waxaa ka mid ah biyo la'aan oo aad u soo food saartay oo dadka reer Gaza aanay haysan wax biyo ahba. Xaaladdan ayaa waxa ay ku noqotay argagax dadka marka la eego dadkaas oo aan biyo haysan oo cunto haysan oo waxba aan haysan oo aan gargaar haysan. Gargaarkiina waa ay u diideen ciidamada Israa'iil. Warbixinta UNICEF waxa ay soo gudbisay maanta in gargaar ay islahaayeen u gudbiya ay ciidamada Israa'iil ay ka hor istaageen. Dadku waxa ay inta badan u dhimanayaan nafaqo darro, xabadda waxa uga daran gaajada. Isla markaana waxa ay ku nool yihiin nolol aad u daran. Hay'adda Bisha Cas ee loo yaqaan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa iyagu warbixin dheer ka diyaariyey. Isla markaana waxa ay sheegeen in halkaasi ay taallo geeri iyo dhaawac iyo carruuro gaajaysan iyo dad ku dhex aasan guryaha dudumay dhagaxaanta hoostooda. Warbixintaas Bisha Cas ee diyaarisay ayaa ahayd mid aad Israa'iil uga argagaxday. Dhinaca kale wadahadalada u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxay ka socdaan magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Halkaasi oo ay ku kulmeen labada dhinac si indirect ah si aan toos ahayn. Halkaasoo ay dhexdhexaadiyaasha labada dhinac ay marba u kala dab qaadayaan wararka. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in wadahadalkii shalay uu ku soo gabagaboobay in ay labada dhinacba ay taagan yihiin in Xamaas waxa ay tiri iyadu waraaq statement ay soo saartay Xamaas ayaa waxay ku sheegtay in ay u baahan tahay Xamaas nabadgelyo buuxda iyo dagaalkan oo la joojiyo oo si macnaha dhab ah dagaalka in la joojiyo oo dhab ah ayaan u baahanay guarantee ayaan u baahanay bay yidhaaheen Xamaas. Dhinaca kale ee Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu waxay ku eedeeyeen in uu isagu doonayo in uu dagaalka sii wado ee ay ka tahay marmarsiyo isla markaana uu doonayo in loo soo daayo maxaabiista inta ka hadhay ay hayaan Xamaas. Kadib marka maxaabiista la sii daayana uu dagaalkiisa hawsha halkiisa ka sii wadi doono. Balse Xamaas waxay tiri arrintaasi wax loo dul qaadan karo ma aha, wax la aqbali karana ma aha. Yidhaaheen anigu diyaar baan u nahay inaanu maxaabiista sii deyno laakiin waa in heshiiska la fuliyaa oo ah in Israa'iil ay ka baxdaa magaalada Gaza ciidamadeeda ka saaraan. Arrinta kale ee meesha taala iyaduna waxay tahay magaalada Gaza marka ay Israa'iil ka baxdo yaa gacanta ku haynaya maamulkeeda. Arrimaha qir iyo qir la isku yahay waxaa ka mid ah in Israa'iil ay ka baxdo magaalada Gaza iyo yaa dhisi doona magaalada maamulkana yaa gacanta ku hayn doona. Qodobada la isku hortaagan yahay qodobadaas ayaa ugu waaweyn. Xamaas iyadu dhinaceedu way caddeysay in aanay ka bixi doonin Gaza isla markaana aanay ogoleen cid aan dadka reer Falastiin ahayn maamulkooda loo dhiibo. Dhinaca kale Israa'iil iyaduna ma ogola in ciidamadeeda halkaasi ay ka saarto ilaa ay hubsato inay baabi'isay ururka Xamaas.
warar kale oo iyaguna soo baxay waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaaraha dalka qatar ay hadda iyo wakiilka ergeyga gaarka ah ee u xilsaaran maraykanka wadahadallada mudane steve witkoff ayaa iyagu maanta shirkaasi dhexdhexaadka ah ee ka qaybgelaya hadalkani ma aha mid toos ay isu hor fadhiyaan waa dhexdhexaadin labada dhinac waa loo dhexeeya oo kooxahan u dhexeeya ayaa u kala dab qaadaya warka sida warku sheegayaan waxay sheegayaan in bal waxa ay kusoo kordhin doonaan maanta iyo halka ay baasha marsiin doonaan in laga warsugi doono ilaa gelinka dambe maanta waa tahay iminkana bal waxaan eegaynaa madaxweynaha dalka maraykanka mr donald trump ayaa waxa uu ka codsaday madaxweynaha dalka turkiga mudane erdogan in uu ka caawiyo wadahadallada xamaas iyo israa'iil ka socda qaahira madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa telefoon u diray madaxweynaha dalka turkiga mudane erdogan isla markaana waxa uu sheegay uu ka codsaday inuu ka caawiyo wadahadallada xamaas iyo israa'iil ee ka socda dalka masar erdogan arrintaasi waa uu ka aqbalay balse warbixinta uu soo saaray erdogan ayaa waxay ahayd in si dhaqsaa loo dedejiyo wadahadalladaasi isla markaana loo baahan yahay labada dhinacba in ay aqbalaan qodobada uu trump soo jeediyey waxa kaloo uu sheegay in dhinaciisa uu taageerayo in dowlad ay dadka shacabka falastiiniintu leeyihiin lagu wareejiyo magaalada qasa warar kale ayaa waxay sheegayaan in warbixin laga helay dalka masar in la doonayo in la geeyo halkaasi ciidamada shisheeye oo markaasi amniga magaalada qasa ilaaliya waa warbixin ay masar laga helay weli ma xaqiiqsan warbixin kale oo dalka masar ay soo saartay sida wararku sheegayaan ayaa waxay sheegaysaa in ay in heshiisyada in hawsha ay ka mid tahay in la geeyo ciidamo ka socda qaramada midoobay oo ka kala socda beesha caalamka sidoo kale wiilka madaxweyne trump u jooga ee uga qaybgelaya shirkan jared kushner ayaa isaguna ka qaybgeli doona shirka maanta loo ballansan yahay in ay halkaasi isugu wada tagaan dhammaantood balse wax ku ool ah waxay uga soo baxaan shirkaasi ama qodobo muhiima in ayaa laga filayaa maanta maadaama ay isugu wada tegayaan dhammaantood oo maanta oo arbaca ah halkaasi waa tahay dawadayaal wixii wararee ka soo kordha arrintan dib ayaanu idinka soo sheegi doonaa waa tahay dawadayaal warkeenna ku saabsan magaalada qasa iyo shirka ka socda magaalada qaahira halkaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa wixii warbixina dheeraada ka soo baxda waan idinla soo socodsiin doonaa waa mustafa cabdullaahi oo idin leh isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu